السلام عليكم. shan farsamo oo noloshaada ku keenaya isbedel aad u weyn. kow hadalkaaga soo koob si kasta oo uu yahay mid xiiso badan oo sida fariin aad u weyn. markasta niyadaada ku hay oo ha iloobin in dadyowga ay ku caajisaan hadallada dhaadheer si kasta oo ay u yihiin qaar muhiima. hadalkaaga soo koob kadibna uga bax qofka kugu xiga. 2 ballanta ilaali oo waqtigeeda ku ilaali. ogow meelaha ugu fudfudud ee laga qiimeeyo qofka daacadnimadiisa iyo mitidnimadiisu inay tahay ballan ilaalinta. 3 dadka kula dhaqan dabeecad iyo dhaqan wanaagsan si aad u hesho dadyow badan oo wanaagsan kuwaas oo noloshaada saameyn wanaagsan ku leh. niyadaada ku hay si aad u hesho saaxiibo wanaagsan kaliya waxa kaaga xiran inaad adigu noqoto qof wanaagsan. 4 weligaa iska ilaali inaad siiso qof kale talo qaldan oo aad ogtahay natiijada ka dhalan doonta. waayo mararka qaar waxa macquul ah hadal ama talo aad si yaroo fudud u tiri ayaa galaafan karta qofka noloshiisa. aad uga fiirso talooyinka aad bixinayso xitaa haddii aad neceb tahay qofka. 5 ku dadaal inaad hesho saaxiibo wanaagsan kuwaasoo kaala baxa waqtiga wanaagsan iyo waqtiga aad murugaysan tahay. ha iloobin marnaba inay lagama maarmaan tahay inuu qofku helo saaxiibo wanaagsan oo uu kala sheekaysto xaalad kasta iyo waxa qalbigiisa ku jira. ugu dambeyn naftaada jeclow oo si kalsoonida ay ka dalbayso waayo waxay awoodaa boqolaal shay oo aanad adigu sawiran karin maskaxdaadana ku soo dhici karin. waxaan ku rajeynayaa nolol wanaagsan oo qiimo badan insha Allah.